أصحابتي عاد بندي سلامة يا كنال كجمعة official قار كستايدين تاي وقت كستايدين تاي هول كستو هيسان عاد بندي سلامة يا وحنو كهالينا موضوع يروك صعبسن لليرضا يو وقتيا يردقن كيني قروح بدنا سدوها وحنو لهين دقن قروح بدن oo runtii lagu faano oo meelo badan taabanaya oran mayno dhalinyaradeenu waxa ay ka tageen dhaqankii laakiin waxa aan ku waaninayaa maanta dhalinyaradeenu inay ilaaliyaan dhaqanka jacaylka Soomaalidu wuxuu ahaa jacaylkii ugu ixtiraamka fiicnaa marka la eego adduunweynaha mala hindida khiyaaligeeda daawateen laakiin inaga Soomaali ahaan waxa aynu nahay dadka ugu dhaqanka wanaagsan runtii waxa miyiga oo kale marka la sheekaysanay lagu sheekaysan jiray oo inantuna dugsiga xagga iska taagi jirtay inankuna dugsiga xagga iska taagi jiray iyadoo marka dambe ay noqon jirtay in aroos qurux badan oo wax dadab la yiraahdo loo dhiso farda lagu galbin jiray guurkii hore ay naga qurux badnaa run marka la sheegayo laakiin mar walba waxa leenahay jacaylka lagu matalayo afafka ingiriisiga ama luqadaha kale waxa ka qurux badnaa inaynu ereyadeeni Soomaaliga aha horta noolayno mar walba inaynu ereyadeeni Soomaaliga aha soo qaadano ayaa qurux badan inaynu ereynan micnihiisa garan tusaale ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed imika hadii aad weydiiso kelmadda baby waa maxay qaar badan baan ku fasilaynin haddana inantu la sheekaysanayo inuu baby buu koodnay ama inantu inay kala sheekaysanayso baby buu koodnaysa marka hore waa inaynu fahanaa micnaheenu waxa uu yahay mar walba waxaanu isku waanaynaa inaynu eegno oo niyad garayno dhaqankeena quruxda badnaa ee suubanaa wuxuu ahaa kelmadihii wacnaa gacaliso waa gacal wax gacal ka wanaagsan ma jirto gacalku mar waa adeerka ina adeerka walaalka marna waa gacalku waa xigaalka xigtada iyo maxay hetay xididka waxa la yiraahdo marka kelmadiheena quruxda badnaa inaynu soo noolayno ayaa haboon aynu mar walba eegno wuxuu dhaqankeena ahaa aad iyo aad baan idin salaamayaa kanaalka waxa leeyahay garayga noo saara soo dhawaada aad iyo aad baan idin salaamayaa asxaabta quruxda badan leh